ومعلم داغا وفصل التضباط عشر كينوي وحكوسة سيئة نبضة يحسنوني نبضة يحسنوني روح نوري بقى الشديد نبضة يحسنوني نبضة وشيء أقالي وحنا كحرا دما وحيابها كلا عدته كباهين نبضة يحسنوني والله شيء مهم وحنا كحرا أما أنا عقل الوسوي كريم وحنا كحرا وحيابها عدته كباهين أردن wax alla waxay dadku u baahan yihiin meesha haddana ay ka jirin wax alla wax la qabsan kara ma jirto waxba laba barasaro caafimaad ma jirayo ganacsi ma jirayo hurda ma jirayso soo jeed ma jirayo dadku waxay noqonayaan dad colaad iyo dagaal iyo dhibaato ku taagan sidaa daraaddeed wax kasta waxay u xiran yihiin nabadda iyo xasiloonida nabaddu waxay suurtagelaysaa in dadka ku noolaadaan barwaaqo waxbarashaduna ay horumar samayso nabaddu waxay suurtagelaysaa inay dadku ku noolaadaan barwaaqo qofka hadduu nabad haysto oo caafimaad qabo barwaaqo kala noqdo marka inay dadku nabad barwaaqo ku noolaadaan waxbarashaduna ay suurta gasho ayay nabaddu suurtagelaysaa sababtu tahay haddii aan nabad jirin cidna wax ma baranayso ee qof waliba wuxuu noqonaya qof duurgal oo ayda ku jiro oo calaaqan ka baqaya ayuu noqonaya sidaa kalena ganacsi xor ah oo xalaal ah ayay dadku samaystaan dadkuna waxay samaystaan haddii nabad jirto meesha nabad iyo xasilooni ka jirto waxay samaystaan ganacsiyo xor ah oo xalaal ah oo ay iyagu iskood u maamulanayaan aan cidna ku maamulayn cidna aan uga baqayn cabsiina aan ku jirin ayay dadku qabsanayaan ama samaysanayaan Somaliland waa dal madax bannaan oo ka go'ay dowladdii la isku odhan jiray Soomaaliya waa dal madax bannaan oo ka go'ay dowladdii la isku odhan jiray Somaliland sideedaba markay xukumada qaadatay 1960 waxay la midowday dowladdii Soomaaliya ee Talyaanigu gumaysan jiray sidaa daraaddeed Soomaaliweyn ayaa la isku odhan jiray markaa mabda'a Soomaali iyo Somaliland bay ka tirsanaayeen waxaa la odhan jiray Somaliweyn hase ahaatee Somaliland markii ay dhibaatooyin fara badan kala soo korortay iyo xaqiraad iyo xuquuq la'aan fara badan ay kala soo korortay waxay go'aansatay inay ka go'do waddankii la isku odhan jiray Soomaaliya sidaa daraaddeed waxay la soo noqotay xornimadeedii ka buntay 1960 ayay dib ula soo noqotay xornimadeedii 1960 ka buntay oo tagtay waddanka Soomaaliya ayay dib u soo ceshatay taas oo ay la soo noqdeen 18 May 1990 May 1990 oo ah tan ay maanta xusno markasta sanad kasta 18 May ay xusno 18 May ay xusayna had iyo jeer waxay ka soo jeedaa xilligii ay kala soo noqonay madaxbannaanideeda Soomaaliya ay kala soo noqday Somaliland waxay ku noolay si nabad iyo xasilooni iyo barwaaqo ah ayay ku noolay waxay ku noolay muddada ay jirtay si nabad ah xasilooni iyo barwaaqo ayay ku dhex noolay oo ay ku jirtay ilaa xilligaa haddana ay ku jirtaa waxaana suura gashay nabad siyaasad habboon oo ay hoggaankeeda soo mareen madaxweyneyaal kala duwan waxay ku jirtay oo ay suura gashay intii ay nabad iyo barwaaqada ku jirtay in ay doortaan madaxweyneyaal kala duwan oo ay samaystaan hab siyaasadeed oo madax bannaan oo ay shacabku dooranayaan madaxdooda in ay soo mareen madaxweyneyaal badan kuwaas oo shacabka reer Somaliland si xor ah u soo doortay madaxweyneyaashaas oo aan ahayn kuwo ku yimid qabyaalad ku yimid ahayn kuwo reer ku yimid ahayn kuwo iyagu iskood yimid ahayn kuwo afduub ku yimid ahayn kuwo inqilaab ku yimid ahayn ee ah kuwo ay shacabku soo doorteen waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ahaa in madaxweyne daahirkiyaale uu galay doorasho kuna guulaystay doorashadii inuu madaxweyne daahirkiyaale galay doorasho kuna guulaystay doorkii dambe markii doorashada la qabtay ayaa hogaamiyihii mucaaradka ee madaxweyne maxamed Siinayo ka
doorashadii labaad ee la qabtay hogaamiyihii mucaaradka kulmiye xisbigii la odhan jiray ayaa wuxuu doorashada usoo tartamo daahir riyaalo koo soo tartamay sidaa daraaddeed shacabkii doorashada dooranayay ee dadka dooranayay ee xorta ahayn cidina khasbaynin ayaa mar labaad waxay si fiican doorasho u doorteen madaxweyne maxamed axmed siilaani daahir riyaale oo kula guulaystay daahir riyaale si sharaf leh ayuu u aqbalay wuxuuna ku wareejiyey xilkii madaxweynaha cusub daahir riyaalna si sharaf leh ayuu u aqbalay doorashada oo laga guulaystay ayuu aqbalay sidaa daraaddeed xilkii wuxuu ku wareejiyey madaxweynihii cusbaa ee madaxweyne siilaani taasi waxay somalilan ku keentay nabad iyo xasilooni aan cidna lagu tuhmin inay xaqdarro samaysay ee la ogaaday in si xor iyo xalaal loo tartamay loona kala badiyey weligeedbana ilaa iyo hadda madaxweynayaasheena jira si xor oo xalaal ayay u kala baxaan oo loo doortaa oo dadku u soo doortaan taasi waxay somalilan u keentay nabad iyo xasilooni waana wax aan ka dhicin qaaradda afrika iyo dowlado badan oo yurub ah iyo ama aasiya waxaa laga dowladaha afrika soomaalida uga doorashada markay dhacdo in la isku laayo oo ay ka dhacaan daraabyo fara badan oo qalalaasi ka dhaco dad ku dhintaan oo waxyaabo badan ay dhacaan hase ahaatee yurub naftirkeeda way ka dhacaan aasiya naftirkeeda way ka dhacaan sidaa daraaddeed laakiin somalilan weli kamay dhicin doorasho la isku qabsaday ama layskaga musuqmaasuqay oo layskaga shubtay ama xaqdarro u dhacday kamay dhicin waana ta ilaa hadda somalilan oo caalamku ku ammaano waxyaabaha dhiirigeliya nabadda iyo xasiloonida waxaa ka mid ah waxyaabaha dhiirigeliya ama horumariya nabadda iyo xasiloonida waxaa ka mid ah kow isticmaalka adeegga isgaarsiinta oo faafiya muhiimadda ay nabaddu leedahay isticmaalka adeegga isgaarsiinta oo faafiya muhiimadda ay leedahay nabadda iyo xasiloonida ama nabadgelyadu ay leedahay adeegga siyaasaddu had iyo jeer isgaarsiintu waxaa leedahay waa muddo laba afle habba dhinaceed u adeegsato ayay ku goynaysaa inta badan wadamada wanaagsan ee sharcigooda ilaaliya waxay u adeegsadaan dhanka wanaagsan taas oo dadkana wax badan gaadhsiisa ama waxna ka xumayn karta haddii ay xagga wax loo adeegsado wax badan ayay dowladnimada ka xumaysaa isgaarsiintu haddii si wacan loo adeegsadana waxay dadka u horseedaa wanaag iyo si sharafa laba isdhexgalka bulshadu waxay keentaa nabad iyo xasilooni marka ay bulshadu isdhex gasho ee aan qoloqolo iyo qabiil iyo reer loo digin ee dadku ay noqdaan dad isdhex galo oo si wanaagsan u wada degan oo aan reer iyo qolo iyo qabiil toona eegayn midab iyo kalar toona eegaynin waxaa horumara nabadda iyo xasiloonida oo dadku way isku kalsoonaadaan saddex iscaawinta ayaa ah qodobka kale ee dhiirigeliya nabadda iyo xasiloonida iscaawinta dadku markay iscaawiyaan kaba soo qadariska oo kale dadka dowladda oo kale shaqaalaha oo kale marka ay dadku si fiican isu caawiyaan waxay ka qayb qaataa iyaduna nabadda iyo xasiloonida ayay ka qayb qaadataa waayo meel nabad jirto bay dadku wax kala qaadanayaan meel aan nabad jirin cidina isma soo egto qof walba uu cararaya uu baqaya ka kalu iskeedaya ka kalu ka cararaya ka kalu ka baqaya marka meesha ay nabaddu ka jirto ubay dadku iscaawiyaan qodobka afraad la dagaalanka qabyaaladda cunsuriyadda laftakoorka iyo jinsi nacaybka la dagaalanka qabyaaladda cunsuriyadda midabtakoorka iyo jinsi nacaybku waxay keenaan in bulshadu ku noolaato nabad iyo xasilooni haddii ay dadku iska ilaaliyaan ama ay la dagaalmaan qabyaaladda oo reer meesha laga saaro oo dadku saaxiib iyo shaqaale iyo dad isku wada dhow ay noqdaan cunsuriyadda iyo waxyaabaha xumaanta curfiga haddii dadku ka qalax banaadaan midabtakoorka waxa la yidhaahdo oo dadka jinsi loo eego ama diin loo eego ama waxyaabo kale loo eego haddii la iska saaro iyo waxyaabaha jinsi nacaybka ee dadku ay neceb yihiin qof kale ama jinsi qof kale ay si kale neceb yihiin waxaas oo dhan haddii laga tago oo lala dagaalamo bulshadu waxay ku noolaanaysaa nabad iyo xasilooni oo wax laga baqayaa tooyin majal reer hebe laga baqi maayo reer hibo laga baqi maayo reer kale laga sii baqi maayo qabiil laga baqi maayo ilaahay uma markaa lagu xidhay laga baqayo qodobka shanaad cadaaladdu waa qodob muhiim ah oo dhiirigeliya nabadda iyo xasiloonida cadaalad
وعلى رجع عدالة سدع وجه كلية عيسى وما لكم عمها عدالة وواحد اسمها يضرب عدالة وواحد اسمها يضرب هذا الشعب هاي هذا حافظ هاي هذا القيس هاي هذا عيد الصلاة الجوري وحتى هذا عدالة كيش نضطكم وضع الوضع مركع عدالة يضرب شيء مهمة وكقل قطع نبدأ يحسبون إن شاء الله كان على محسبون كشفتوا والشيء يريد أما شيء فرسات نقول عشان برواقة ويريد إنسان عشان برواقة حسبون إذا يوم دجان شو عدالة وحي فرسات ده هو حيريد إنسان هو حيريد إنسان بقول عشان برواقة حسبون إذا يدجان شو أنت أصلا هذا الإنسان qof cadaalad sameeyo tahay ama meel cadaalad ka jirto aad ku nooshahay intaas oo dhan way dhacaya oo si nabad ah ku noolanaysa waddanka aad joogto markaa qodobka lixaad hogaamiye dhaqameedyada wadaadada iyo siyaasiyiintu waa in ay dadka ka wacyigeliyaan waxyaabaha keeni kara dagaalada iyo colaadaha sokeeye dadka siyaasiyiinta waa in ay dadka ka wacyigeliyaan oo aanay iyagu ku bilaabin wadaadadu sidoo kale waa inay ka wacyigeliyaan dadka diintana waxuga sheegaan sida xaqa ah u sheegaan hogaamiye dhaqameedyada dadka la yidhaahdo ee oqaasha ah ee caqilada iyo nabadoonnada iyo dadkaasna iyaguna waa inay dadka ku dhiirigeliyaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen nabadda iyo xasiloonida si loo baaqdo oo meesha uga baxaan waxyaabaha keeni kara dagaalada colaadaha sokeeye ama colaadaha qabiilooyinka magaalada degan ama qabiilooyinka isku reerka ah ama qabiilooyinka deriska ah waxyaabahaas oo dhan si ay uga baaqdaan dagaal iyo colaad uga baaqdaan waxay inay dhiirigeliyaan ama ay ku wacyigeliyaan dadka dhalinyarada iyo dadka kale ee soo koraya dhalinyarada soo koraysa iyo dadka waaweyn intaba inay ku wacyigeliyaan waxyaabaha keeni kara xumaanta ayaa iyaguna ah qodobada dhiirigeliya nabadda iyo xasiloonida nabadda iyo xasiloonidu waa wax aan la huri karin qof waliba loo baahan yahay cid kastaana nabad iyo xasilooni way u baahan tahay oo qofna ma noolaan karo colaad xilligii dowladdiisii adare ee dagaalka lagula jiray dadkii noolaaya jiray wax ay ku noolaayeen oo nolol ma jirin dad habeen iyo maalin buuranayo soconayo baqayo gurigooda xor ahayn waddankooda xor ahayn waddaday marayaan xor ahayn bay ahayd dadkii xilligaa jiray unbaa garan kara nabaddu qiimaha iyo macaanka ay leedahay marka casharkeena halkaas ayuu maanta inoogu egyahay casharka ku xiga intaynu isugu iman doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ardayay waa inaad si habboon casharada usoo akridaan buugtana aa u eegtaan imtixaanaadka soo wada ee soo socdana aa usoo diyaargarowdaan idinkoo qof walba imtixaan diyaar u yahay waa inuu bartan aynu isugu soo noqonnaa ama imtixaanaadkeena idin soo diraa idinkoo u ah diyaar hadba sida ay imtixaanaadkaasi noqdaan idinkoo ka dhagaysanaya ama ka ogaanaya sida loo soo hirgeliyo imtixaanaadkaas laakiin waxaa ka horeeya imtixaanka in la akhriyo casharada lana eego marka youtube-ka la soo geliyo qof walibana uu ogaado subscribe siiyo si uu ardayga kalena uga helo ama u gaadho oo aad iswada gaadhsiisaan ee aan qof intuu isagoo ah ka odhanin anaba casharkii maanta waa markee hebelooda madartay maayo maxaa lagu sheegay markaasi aanay taas u dhicin inay iswada gaadhsiisaan intiina iska warhayso oo dhami isu wada sheegtaan marka casharka la soo geliyo sidaa daraaddeed inaad casharadina sidaa u qaadataan marka buuggeenu malmaanka ku dhow yahay waxba aan laba saddex cashar ka badnayn baa inoo haray intaasi marka ay dhammaato waxa weeye qof walba waxa lagaa doonayaa wixii aad soo baratay iyo wixii aad soo akhriday wassalaamu calaykum waraxmatullahi